السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Bilig Hurfe. Waxaan rabaa halkan inaan kusoo bandhigo barnaamij aan ugu magac daray u hiili afkaaga hooyo. Markaad maqasho u hiili afkaaga hooyo, kulley wax badan ayaad sawiranaysaa. Waxaan arkay afka Soomaaligu inuu qani yahay, waana la isku raacsan yahay. Ayadoo sidaas tahay ayaa waxaa jira erayo badan oo afka Soomaaliga ka mid ah oo aan u arkay inay dabar go'ayaan haddaan wuxuun laga caymin. Dabeetana midaas waxa igu kaliftay inaan qalinka u qaato inaan eray. Waxaa jira sidaynu dhammaanteen ogsoonnahay afafka ay ummaduhu ku hadlaan waxay sameeyaan koror ama koboc kusoo kordha 20 sano, 30 sano, 40 sano iyo 50 sano oo walba. Taasoo aynu dhahno ereygaas uu hebel isticmaalay ama heblaaye isticmaashay ama gobol hebel laga isticmaalay waa lahjad ama waa waxa la yiraahdo erey suuqdi ah. Haddaba barnaamijkani wuu ka duwan yahay midda. Ma ahan lahjad, mana ahan erey suuqi, mana ahan mid looga hadlo xaafad gooniya. Waxaa weeye luuqado kale oo afkeenii booska kala bixi raba. Sideen dhammaanteen ogsoonnahay waxaa afkii Soomaaliga ku dhex milmay sida afka Carabiga, afka Ingiriisiga, afka Sawaaxiliga, Dhashka, af Xabashiga iyo qaar kale oo badan. Markaan taa u fiirsaday ayaan go'aan waxaan ku qaatay inaan qalinka u qaato oo aan dabagal ku sameeyo erayada afafkaas looga yimid iyo halkay naga soo galeen iyo af Soomaaliga saxda ahaa maxaa lagu oran jiray. Afafka tirada badan haddaba ma ahan midaan meel ku soo koobi karo. Waxaan ugu hormariyay afka ugu badan ee afka Soomaaliga ku dhex milmay aan laga dhex garanayn sababtii rabtaa ha keento. Intaan baaritaanka waday oo gaaraysa muddo 4 sannadood ayaan waxaan soo helay 1408 eray oo aan u bixiyay dulmanayaasha erayada afka Soomaaliga. Haddaba dhageysto waxaad la socotaa 1408 eray waxa aan ka soo ururiyay waa 1408 eray oo Carabi ah oo booska kala baxay 1408 eray ama weerood oo u dhiganta magaalo, tuulo, xaafad oo kale markaan eray leeyahay ayay u dhigantaa ayay booska kala baxeen oo ay agoontemeeyeen ama ay yatiin ka dhigeen. Daaline erayada bal ku soo dhawaada. Ka waran haddaan ku yiraahdo qado iyo quraac ma ahan af Soomaali ee waa af Carabi oo halka inooga yimaadeen iyo cidda inoo keentay kolley anigu garan maayo. Haddaba barnaamijkan waxaan u bixiyay 10 ley. Waxaan rabaa barnaamij walba inaan 10 eray ku soo qaato si hufan aan 10ka eray u dul istaago iyo 10ka waxay af Soomaaliga dhabta ah lagu yiraahdo. Waxaan rabaa kuwa ugu fudud inaan ku bilaabo. Qalbi af Soomaali waxa lagu yiraahdaa wadne. Qado af Soomaali waxa lagu yiraahdaa hadimo. Quraac af Soomaali waxa lagu yiraahdaa hiraab. Caashaq iyo xubbi iyo cishqi midna ma ahan af Soomaali ee af Soomaali waxa lagu yiraahdaa jacayl. Alle af Soomaali waxa lagu yiraahdaa eebe ama waaq. Xornimo af Soomaali ma ahan ee af Soomaali waxa lagu yiraahdaa madax bannaani. Wadan af Soomaali ma ahan ee waxa lagu yiraahdaa dal. Caqli af Soomaali ma ahan ee waxa lagu yiraahdaa garasho. Xisbi af Soomaali ma ahan ee waxa lagu yiraahdaa urur ama gaashaanbuur. Shay af Soomaali ma ahan ee waxa lagu yiraahdaa walax ama wax. Waxaan filayaa halka 10 eray baan idinkugu dulmaray. Haddaba haddaan mar kale kuugu celiyo
waxaan kugu yidhi qalbi af Soomaali ma ahan ee waa wadni. Qado af Soomaali ma ahan ee waa harimo. Quraac af Soomaali ma ahan ee waa hiraab. Caashaq, xubbi iyo cishqi midna af Soomaali ma ahan ee jacayl unbaan af Soomaali u hayaa. Alle, Rabbi af Soomaali waxaa lagu yiraahdaa eebe ama waaq. Xornimo ama xorriyad baan haysanaa af Soomaali ma ahan ee waxaa xornimo af Soomaaligeedu yahay madax bannaani. Waddan af Soomaali ma ahan ee waxaa af Soomaaliya dal. Caqli af Soomaali ma ahan ee af Soomaaligiisu wuxuu noqonayaa garasho. Xisbi af Soomaali ma ahan ee waxaa lagu yiraahdaa urur ama gaashaanbuur. Shay af Soomaali ma ahan ee waxaa af Soomaaliya walax ama wax. Waxaan doonayaa inaan barnaamijkan si joogto ah haddii Ilaahay idmo oo ogolaado inaan usoo gudbiyo idinlana wadaago. Waa tobanley 10 eray ee dulmanayaasha afka Soomaaliga si joogto ah inaan idinla wadaago. Waxaan idinka codsanayaa wixii idinkuba aad haystaan oo aad afafkaas dhumay amba erayadaas dabargoy raba oon ugu helinayno afka Soomaaliga aad ila soo wadaagtaan iina soo dirtaan. Aad baan u mahadsantihiin.